Etoobiyaanku dhawaato badan ay ku haayaan deegaanka. Waxa soo haray Etoobiyaan marka anu dad waa aragnaa waana inta badan waa tarxiilnaa ragga iyo dumarka waan isku haymid. Nimanka Soomaaliyeed iyo nimanka gobolka Mudug joogo waxaan leenahay Etoobiyaan xidid lama noqon karno. Etoobiyaan xidid lama noqon karno. Wiil hadda waslaan Etoobiya ay dhashan gabdhaheena kuma dari doono. Laakiin gabdhaha odayaasha ay sheegtay Samsi aad noo qaban yaantan si kal maalin bay ahayd yaantan waa ahayd. Ayada dadka u baahneed nimankii Soomaalidana waxay maqleen naagaan lama jarinay bay maqleeno wuxuudiyay wataan. Wayna sheegto gabdhaha hadii loo daayo waxa ay sheegtay gabadha Itoobiya la aadumaayo marka hooyooyinkuna ha adkaysteen gabdhooda hadeysteen waxa lagu jeclaanayo ayaguna ninkoodana u duceeyay hooyada aabana u duceynaysa hadii loo daayo ilmaada riyaalo gabdhiina imaansada hadda wacyigelina la bixiyay gabdhuhu isku mid ay noqon doonaan ayagoo waliba nasabkii iyo dadnimadii iyo Soomaalinimadii wataani gabdhaha Soomaaliyeed idinku naagin nimankan Itoobiya inay aadaan sabax u noqoneen nin guriga jooga oo la saaka laga soo tagay Itoobiya ma u yeeranay Etoobiyaanku dhawaato badan ay ku haayaan deegaanka nimankii Soomaalidana waxay maqleen naagaan lama jarinay bay maqleeno wuxuudiyay wataan nin walba wuxuu yiri Etoobiyaanka iga gaarsii waxaad arkaysaa 5 nin oo waxaan arkaa anigu niman Etoobiyaan aroostay reer Koonfur ah u badnaadaan dadkeena reer Koonfur ka ah u badnaadaan warheeda gabar yar oo aan nadaafadna lahayn aan dadnimana lahayn nasab iyo muxuu ahaa iyo nasab darro meel ay ka soo jeeday iyo boon aadan garanaynin oo Etoobiyaan ah oo laga yaabo inay diinta Islaamka ba aysan haysan maalin dhaweed baa waxa maqlaay nin waxa la yiri xogaa yara lug iyo gacan yara jiiska ah wuxuu yiri war gabar Etoobiyaanka la iga raadsho markii waxa la asagay lagu xiray ay walaalkiisa xogaa murqa waaweyn oo meesha maray aragtaan leh markaas tiriyaal yaa ninkan ma rabe ninkan walaalkiisa asaga faana isaleena kana lagu xiray saytiri hadii lagu xiray maxaa ka macnaheeyo walaalo le ma ahan oo labadooda sadacday waayo loogiyahay waaye gudoomiyaha goob joogay waheed aad iyo aad u mahadsantihiin ayagana waxa loo baahan yahay nimanka Soomaaliyeed iyo nimanka gobolka Mudug joogo waxaan leenahay Etoobiyaan xidid lama noqon karno Etoobiyaan xidid lama noqon karno wiil hadda waslaan Etoobiya ay dhashan gabdhaheena kuma dari doono ilmaada riyaalo gabdhiina imaansada hadda wacyigelina la bixiyay gabdhuhu isku mid ay noqon doonaan ayagoo waliba nasabkii iyo dadnimadii iyo Soomaalinimadii wataani gabdhiina iyo dalkiina imaansadaan leenahay caafimaadkiina ilaalsada nin wariyaaba wuxuu yimid gabar meel yar oo bunku karinayso haba wiil koob yar oo kafee u dhiibays markaas wuxuu yiri shaqadan yar oo meesha banaan aad ku haysid noloshaada ma kafeysaa ma yeetiri wiil kale oo Etoobiyaan ah wuxuu ahaa oo muslim ahaa waxay tiri ma kafeysay tiri aniga wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka Etoobiyaan ka tirsanahay mushaaran qaataa tiri dadkaana waxay tiri meeshaan shaqaan u joogaa maxay taa shaqada u joogtaa waxay tiri waxaan faafiyaa HIV ga faafiyaa tiri wuxuu yiri see u faafisaa HIV ga meeshaan bunku gadaay waxay tiri laba siyaabood oo faafiyaa tiri mid waxay tiri bunkaan ugu daraa midna waxay tiri jirkaygan ku aafeeyaa tiri oo ayaga dhan fayl iigu jiraan mid walba wuxuu leeyahay tarcaawana ila jirtaa magarateen cilad kalena way qabaan dadka nimanka Soomaaliyeed oo hadda adduunka hore u maray caafimaadkaba ma tagaan oo isma baaraanba mana baaraan gabdhaha ay guursanayaan hadii ajnabi yihiin iyo hadii Soomaali yihiin war naftiina u naxa mustaqbalkiina soo gaabinina adoo nool ha dhiman wiilasha Soomaaliyeed oo idinkoo nool ha dhimanina sababtoo ay tahay qofka cudurkaas laga helo naagtiisa xataa furiin uma baahna way iska tagaysaa sida bariska kala waa
waxa soo haray Ethiopian marka anu dad waa aragnaa waana inta badan waa tarxiilnaa ragga iyo dumarka waan isku hayimid laakiin gabdhaha odayaasha ay sheegtay samsi yaadna loo qaban ayaantan sikal maalin bay ahayd ayaantan waa ahayd ayada burka u baahneed wayna sheegto gabdhaha hadii loo daayo waxa ay sheegtay gabar Ethiopian la aadu maayo marka hooyooyinkuna ha adkaysteen gabdhooda hadeysteen waxa lagu jeclaanayo ayaguna ninkoodana u duceeyay hooyada aabana u duceynaysa hadii loo daayo marka Ethiopian ma soo galayaan wadanka marka waxaan rabnaa in la isku turo oo ragga loo turo annaguna gabdhaha u turo waan turaynaa hadii loo turo insha Allah turiinaduna ay ka bilaabatay idinka gabdhaha Ethiopianka la guursanayana waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed idinku naagin nimankan Ethiopia inay aadaan sabaha u noqoneen nin guriga jooga oo la saaka laga soo tagay Ethiopia ma u yeeranay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.